madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa uu hambalyo iyo salaan ku saabsan munaasabadda sanadka cusub ee 2017 u diray dhammaan shacbi weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland guda iyo dibadba munaasabadda sanadka cusub oo kamida munaasabadaha fasaxa qaran ee Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa uu si gaar ah hambalyo iyo salaan ugu diray dhammaan shaqaale weynaha kala duwan ee Soomaaliland qaybaha kala duwan ciidamada qalabka sida golayaasha qaranka iyo guud ahaanba shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastoo ay ku nool yihiinba ee ay kaga jiraan hawlaha qaran ee ay kaga nasan doonaan maalinta curashada sanadka cusub ee 2017 madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silaanyo waxa uu shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland alla uga bariyay inay sanadka 2017 kiisa kale ay ku gaaraan nabadgelyo barwaaqo iyo horumar iyo Soomaaliland beesha caalamka اعتراف buuxa ka hesha sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silaanyo waxa uu shucuubta bulshada caalamka kuwa Soomaaliland u rajeeyay in sanadka 2017 noqdo kii ku kowsada nabadgelyo iyo xasilooni taama ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliland wuxuu sidoo kale u duceeyay shaqaale weynaha aanu caafimaadku u saamixin inay caafimaad qab ku gaaraan curashada sanadka cusub ee 2017 bilowgiisa wuxuuna madaxweynuhu alla uga bariyay inay caafimaad taama ay helaan shaqaalaha iyo guud ahaanba muslimiinta kale ee caafimaadku aanu u saamixin curashada sanadka cusub ee 2017 isagoo allana uga bariyay madaxweynuhu inuu xanuunka ka dulqaado sanadkiisana ay caafimaad qab ku gaaraan warsaxaafadeedkan ayaa ka soo baxay qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ku seexan afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Aadan Cige Deyr